السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قصة هذا معنا العصب إيه بالنسبة للكرام ما عنده حرينا أن أمستر قيب طلبات أو سوشيال فوبيا سو قيب طلبات waxaan ka hadlaynaa maxaa horta koos gareeyo cudurka oo social phobia ama social anxiety cudurka social phobia ama social anxiety waxa waaye cudurada maskaxda gasho of course aan wuxuu ka mid yahay sababaha oo keenaana way la mid yihiin sababihii oo cuduradii hore aan ka hadalnay sida depressionka iyo schizophrenia iyo bipolar so of course waxaan ka mid ah generic aan dhahnay so familka haddii ku jiro haddii dad oo social phobia qabaan ku jiraan ama anxiety qabaan ku jiraan janiska inuu cunugana laga helo way badan tahay haddii chemical imbalance ayaan dhahnay so chemical imbalance waxa waaye markii ay maskaxda kimyadeeda ay simneen waxa sababay u noqon kartaa in cudurka oo social phobia laga helo brain structure mid kaleeta waaye so maskaxda qofka si u samaysan tahay qaybta oo dareenka xukunto haddii ay waxa soo bixinayso like dareenka oo cabsida wax si zaa'id u soo bixinayso then qofkaas anxiety laga helaa so marka maxaa laga qaban karaa ama haddii aan anxiety qabo ama social phobia aan qabo maxaan sameyn karaa si aan nafteyda u caawino so waxyaabo badan aad sameyn kartaa of course midda ugu horeysa oo fiican inaad suubisid waxa waaye intii aadan dadka dhexgalin ama bulshada aadan dhexgalin si aa ula dhaqantid isku day wax oo wax aad jeceshahay oo waxa kaa dhiga oo ku dejinaya inaad suubisid so waxaas waxay ka mid noqon kartaa masalan haddaad music jeceshahay maybe music inaad dhegaysatid haddii aad tahay dadka oo video gameska ciyaaraan inaad video game ciyaartid haddaa qur'aan jeceshahay oo ahla diin tahay qur'aankaagana aqrisatid of course always diinta number one aan dhahaynaa inaa la aado markii oo loo baahan yahay yani sakiina iyo qaboob because of course kelmadaha ilaahay wax ka fiican ma jirto oo na siinayso qabowga iyo raaxada nafsiga aan raadinayno bad qof dadka habigood way kala duwan yihiin so dad video game jecelaa jiraan dad music ciyaaraan oo dhegeystaanaa jiraan dad oo telefishinka inay fiirsadaan maybe a comedy show fiirsanayaanaa jiraan but waxaas dhan wuxuu suubinaa wuxuu soo increase gareyna the feel good waxaa dhahnaa like the feel good chemicals the feel good chemicals so maskaxdaada siina so of course you're already in a good place because waxaad dareensan tahay inaa heestaa jecleed soo dhegeysata ama inaa degan tahay uu qabooban tahay kadib midda labaad oo waxa aad sameynaysid waxa waaye reframe your negative thoughts so fikradda qofka iyo dhaqankeeda way isku xiran yihiin so ani marka waxaa waaye camal kasoo qabo haddii oo behaviorkaaga uu dab yahay fikradaadana waxa waaye gas so fikrad xun haddaa u sheegtid waxaa suubinaysaa dabkiya sii hurinaysaade so haddaa isdhaho masalan waa cabsanaa ma samey kari dadka hortood muka hadli kari ama qof xishoonaysa ah dadka hortood marka istaaga waa xishoonaa hadalka iga dhumaayo then walwalkiyaasi asii badan ay the more oo walwalka oo sii bato the more oo behaviorkayga oo isbedelo the more aan u dhaqmo maybe inaa aadin meesha layga rabo maybe inaa waxaa suubinin shaqa wixii layga rabo markaas so qofka wixii xun haddaa isku sheegtid si xuna u dhaqmay wax fiican haddaa isku sheegtid si fiicana u dhaqmaysaa so it's very important that inaa qalbigaaga khayr u sheegtid waxaa waan samayn karaa waa way adag tahay laakiin waa samayn karaa waa ka bixi karaa inaa naftaada u sheegtid so qalbigaaga khayr u sheegtid because marka aad iska dhaadhicisid inaa awoodid waxaanayto dan awoodan ogweynaa kusoo baxayso waxaa arkaysaa wixii adoo samaysay laakiin haddaa dhaad maba samayn kari ma aadi kari waa dhuma wax kasta haddaa waxa keentid xujo keentid dan ma samayn karaysid so maskaxdaada inaad bedeshid fikradaada inaad bedeshid oo yani it's okay inaad dhahdid waxa way adag tahay laakiin waa dadaala waa suubin karnaa waa isku daya at least waxaa tahay markaas qof oo determined ah qof oo ku mintidaayo ilaa meesha aragtid ka gaartid and of course dad badan oo waxaa jiraan daroogo iyo khamri aadaan markii waxyaabo oo dhibaayo ee la kulmaan ama wax oo ku adag laga rabo inay suubiyaan and that's wax fiican maaha fikrad fiican maaha because the more aad daroogi khamri qaadatid the more aad naftaada u dhahdid ma samayn kartid adigoo daroogeysnayn ama adigoo khamraysnayn and then dhibaatadii way sii badanayleen
so always qof waxaa fiican inaa khamriga iyo daroogada laga fogaado because wax faa'iide kama imaanayo situationkaagana wuu kasii liidanaa sida aa hadda tahay ma soo fiicnaanayo. waxaa jira option oo daawo ah haddii aa haddaa isku dayday waxyaabaha inaa subisid haddaa la hadasho qof oo therapist ah oo ku barto sidee fikradaada loo bedelaa si oo behaviorkaaga u bedelmo. haddii wax kasta ay toosi weyso dan daawa qaadan kartaa daktarkaaga family daktarkaaga kuu qori kara daawooyinka oo anxiety-ga options badanaa jiraan so hadda ani magacyo ma sheegayo oo daawooyin because qof kasto dadka isku hal ma aha qof wax u fiicanaa jira daawo oo korkiisa oo ogolaanaya iyo daawo korkaaga ay ogolaanaynin daktarkaaga waxaas kaagala hadli karo. halka waxaa raba inaan sheega ama halka daawo inaan sheega daawooyinka oo narkaariga ah sida benzodiazepineka camal oo anxiety-ga loo qaato so benzodiazepine is magac weyn waayo deris daawooyin badan oo hoostooda galaana jiraan but those daawooyinkaaseeto haddaa qaadanaysid waxaa fiican inaa waqti gaaban aa qaadatid because daawooyin oo jirkaaga u baranaya waaye daawooyin aa u baahanaysid waaye so badanaa hadda daktaryaal qanuunka waaba la adkeeyay so daktaryaalka caad si fudud ma u qoraan hadday qorayaanna aad iyo aad ay uga fiirsadaan but especially haddaa ka timid dad oo sinji oo waxa hadduu kugu jiro addiction ah dadka oo korkooda wax oo qabsanaya ama u baranayaan haddaa sinji oo familkaaga ay ku jiraan dad saas dad oo khamri cabaan dad oo jaad cunaan oo hadday jaad cunin madax lagu dhufanaayo dadkaas dhan waxa waaye generic ah oo ku jiro marka familkaaga kaas marka iska ilaali daawooyinka oo korkaaga oo u baranayo because khatar waxa ama halis waxa u tahay inuu adigana korkaaga daawadaas ay u barato oo then dhibaatooyinka la kulantid. waa intaas iyo social phobia dhamaadkeeda insha allah waxaan rajeynaa inaa ka faa'iidaysateen waa of course share subscribe iyo like basaar and then iga raali oo haddaa tahay dadka oo ila soo xiriireen and isheli weyne aad iyo aad u adag tahay inaa qof kasto telefoonkii aan kula hadlo laakiin insha allah xal inaa helno waaye waana raadinaa xal oo habboon insha allah waa intaas iyo nabadgelyo asalaamu calaykum